waxaan rajeynaa meel walbo oo joogtaan inaa caafimaad qabtaan. Horta maanta waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo walaalaha i daawado oo subscribe saaray. Kulli waa idin arkaa. Laakiin dad badanaa jiro way i daawadaan subscribe nama saaraan. Please waxaan idin weydiisanayaa inaad subscribe saartaan insha Allah, okay? Marka maanta waxaan usoo galay haddana live-keen inaan meeshan aan kasii wadno sida idinkula ballan qaaday nafteydana uga ballan qaaday inaan imaado live-ka maalin kasto daqiiqado yar hadday tahay xitaa. Marka maanta waxaan kusii soconaynaa caqabadaha ay leedahay markii waalidka ilmaha ka aamuso. Waxaa jiro ilmo markii ay maaragtay wax dareemaan corner isgeliyo ama luuqa camal isgeliyo oo markaas hadal badan ma kasoo baxaayo. Luuqa camal isgeliyo oo markaas hadal badan ma kasoo baxaayo. Ama markii ay maaragtay murugoodaan meelay istaagaan. Ama markay rabaan inay wax kuu sheegaan meelay galaan. Wax uun ayaga markay wax yar dareemaan way aamusaan. Marka caqabadaha ay leedahay ilmaha aamusnaantooda aan ka hadlaynaa iyo sidee adigu caawi kartaa iyo maxaa kasoo gaari kara haddii aan taas laga caawinin insha Allah. Marka soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin meel walbo iga daawanaysaan. Sii share gareeya hana ilaawanina inaa subscribe saartaan insha Allah, okay? Haye waalidiin badanaa jiro oo Soomaaliyeed oo ilmaha ka aamusaan markii ay xanaaqaan ama markay ilmaha murugo u sheegtaan. So hadda ilmahaaga hadduu kaaga sheekeeyo cunug hebel ama qof hebel ama meel hebel ama wax hebel, waalidkii badanaa wuxuu ka hadlaa wixii hebel oo cunuga sheegay. Badanaa cunuga feelingskiisa iyo sidoo isaga dareemayo ma weydiinayo. Isla markii haddii ay tahay dagaal laga hadlaa. Hadday tahay mataqaanaa cunugii lagu xadgudubkiyaa laga hadlaa. Laakiin lagama hadlo cunuga feelingskiisa iyo sidoo isaga dareemayo iyo maxay la tahay iyo sidee lagu caawin karaa. Marka taas caqabad weyn waay. Ilmaha marka badanaa haddii aadan hadalka ka dhageysanin horta way aamusayaan. Marka aamusnaantana waa wax aad iyo aad u xun. Qofka in oo dareenkiisa lagala hadlin oo asiga is aamusiyo oo adigana aadan ka dhageysanin waa dhibaato aad u weyn maskaxiyan. Marka uma fiicno dareenka ilmaha uma wanaagsana in laga aamuso because hadhow maxay baranayaan ceeb waayo inaan ka hadlo waxay aan dareemayo ama ceeb waayo inaan waxaan sheego. Ma fahantay wixii meeshii laga rabi lahaa inay positive noqoto oo cunugii oo asiga maaragtay iska bixi karo dhibaatada markaas haysato wuxuu ka baranayaa inuu wixii ka hadlin. So hadhow markii oo weynaado dad asiga lafac wuu ka aamusaa. Qofka asiga qalad ka sameeyo wuu ka aamusaa. Lamaana hadduu yeesho wuu ka aamusaa. Mataqaanaa asiga dhan wuu isxirxiraa. Isxirxirkaas marka ilmo badanna way leeyihiin. Marka waa inaad ka digtoonaatiin insha Allah. Ilmihiina waa inaad la sheekaysatiin. Marka especially wax idin sheegaana waa inaad kala hadashid hooyo. Marka wax kuu sheega dhageyso horta adi. Waxaba u sheegin asaa kuu sheegayo. Asiga wuxuu kuu sheegaa dhibka haysto. Wuxuu kuu sheegaa dareenkiisa. Wuxuu kuu sheegaa sidoo u malay inuu ku xallin karo. Wuxuu kuu sheegaa sidoo dareemayo. Markaas adiga waa caawinele. Isaga wax dhan kuu sheegayo. Badanaa ilmaha waa very clever. Ilmaha maskaxay leeyihiin. Maasha Allah aad u maskax badan yihiin. Marka ilmaha maskaxdaas yarta ku jirto adiga ku caawi leh. Mataqaanaa ku caawi waxaan ka wadaa like inuu hadalkii ka soo baxa ka caawi in fikradiisa ay dheeraato ku caawi in asiga waxyaabaha hadduu sheegayo oo waxyaabo dhib asiga ka soo gaari kara hadday tahay u sheeg inayna waxaas wanaagsanayn laakiin ka dhageyso. First dhagta keen marka dhagta ha ilaawin aamusna ha hadlin. Just 2 minutes ama 1 minute asli dhageyso ha hadlin. Just habsi gacanta ka qabo dareensi inaad la joogto laakiin ha dhexgelin hadalkiisa. Okay? Marka ilmahaaga la fariiso waxaan isku la balamaynaa waxaan idin sheegaya dhan balan waay ma fahanteen waxaan rabaa inaan isla balano si ay u noqoto qof waalid wanaagsan ilmihiisana wax ka faa'iido ma fahanta adigana daalka iyo waxa aad sameynaysid iyo ilmaha amaanta oo dhan ka daba ordaysid in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir badan ka siiyo at the same time ilmo fiican oo bulshadana wax u tara naftoodana wax u tara diintana wax u tara waalidkood wax u taran inaad soo saartid marka balan iska qaad inaa marka ilmaha kula hadlaayo aamustid marka wax kuu sheegayo dhageysatid isaga hadalka markaa ka dhamaysato isaga su'aash ku celi like waxa dhahdaa what do you think adiga say kula tahay ilmaha maasha Allah way aqli badan yihiin marka ilmahaaga la fariiso kuna dheh waxaan xitaa okay waxaa jirta mararka qaar ilmaha ma yaqaano sida wax loo sheego adiga marka u sheeg markaa daalinta ani maanta waa daalanahay markay baahi ku hayso ani maanta baahiyaa hayso
markaa murugood ani maanta waa murugeysanahay markaa ballamo muhiima leedahay ani berri ballamo muhiima leeyahay waxaan la ballansanahay qof hebel ama xafiis hebel ama meel hebel marka xoogaa waxaan dareemayaa anxiety ama waxaan dareemayaa mataqaanaa walwal yar laakiin mataqaanaa hooy sidaa ku xaliya hee hooy salaada dukada ilaahayaa baryaa waa ducaystaa hooy kaala isla ducaysanay berri ballan hebel aa u socdaa in ilaahay noo soo fududay kaalayaa fariisanaya ducaysanay like mar kasto inaa ilaahay isku xirtid tus oo adiga xitaa tahay qof bini aadan oo daciif ah oo adiga mataqaanaa ma tihid moogtahay ma tihid malaa'ig ma tihid ama qof wax kasta og ma tihid annaga ilaahayaa mar walba ku xirannahay soo ilmaha inuu fahmo waayo ani berri wax hebel ama meel hebel ama si u socdaa ama waxaa samayn doona ama ballan aan leeyahay aniga xitaa qofaa ahay ani xitaa waa walwalaa hooyo marka aniga walwala maxaan sameeyaa ilaahayaa baryaa marka aniga walwala waxaan jeclahay inaan adiga kuu sheego in adiga kula hadlo inaan aabbo la hadlo inaan hooyo la hadlo inaan ayeey la hadlo inaan qof jecel la hadlo so u ogaado hadduu adiga ku waaye inuu qof kala haysto hooyo hadday joogin aabbaa jooga aabba hadduu joogin abtiyaa jooga abti hadduu joogin ayeeyaa joogta ayey haddii joogin habaraa joogta ilaahay hadduu alxamdulilah hanoo badiyo familadeena walaalaheena ama qof wanaagsan oo isaga uu kula yaqaano inuu wax u sheega karo ma fahamte marka laakiin mar kasto inaa ilaahay horta kow ka dhiganayno dadka kale waa second iyo third iyo ma fahanti saas camal asigana waa inuu dareemaa inuu adiga tahay qofka kow oo u imaanayo markuu ilaahay subxaana watacaala oo u ducaysto oo qofka kow wax la sheergareynana adiga tahay oo inuu saas hadda ku koraa intuu hadda 2 sano 5 sano 7 sano 9 sano intuu jiro si markuu 14 sano 15 sano noqdo oo ilaahay qaangaarkiisa gaarsiiyo oo noqdo qof horta yoo la tashanaa waalidiintiisa iyo maaragtay u ducaysana oo barya ilaahaygiisa qof kale uma baahno intaas le inuu fahmo waa cunugaaga maanta haddaa ka aamusid marka hadhowti expression ma samey karo siduu ilaahay u barya xitaa ma yaqaano so adiga fahansii ilaahay sida loo baryo fahansii sida asiga maaragtay oo usoo gudbi kara dareemankiisa fahansii waxaasoo dhan waa wax oo waxaa hadda isleeyahay inaan sheego waxaan horta qasab miya laakiin waxaa waaye qasab haddaanan idiin sheegin waxaan dareemaa ilmaha dhowtina qayb weyn noloshooda ay ka maqnaanayso qaybtaas weynna waxaa qaybta ayaga oo noloshooda u fududay lahayd so markastoo inta wax kusoo gudbiyo wallaahi cilmi weynaa ku jiro waxaan rajeynaa marka inaa ka faa'iideen aniga wax badan waa ka faa'iiday like maasha allah alxamdulilah aad iyo aadayna muhiim ugu tahay ilmaha maskaxdooda waxyaabahaas hadda isleedahay way yar tahay intaas ma waqti ku bixi karaa waqti oo ku bixinay qof fiican haddaa taa ilaahay ka cabsanaa ilmahaas jecel naftaada jecel waa ku bixinay waa samaynay marka dhedheel meeshaan ma jirto ballanqaadaa jiro aad iyo aada u mahadsantihiin subscribe-ta waa arkaa laakiin weli meeshii la rabo ma joogto horta laakiin qof kastoo subscribe ka taabtay ilaahay fartaa ku taabata khayr ha siiyo maskaxdaada iyo wanaaga ay ugu daawanaysan ilaahay ha ka abaalmariyo waa ismaqlaynaa marka berri haddan noo balana insha allah asalaamu calaykum